asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warka warbaahinta deegaan t v. qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xaalada gobolka hiiraan oo qarka u saaran in xalkeeda la gaaro, cabsi ka jirta magaalada mandheera ee dalka kenya, dowladda soomaaliya oo beenisay in la fasaxay jaadkii ka imaanaya waddanka kenya. qodobada dunidana waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn waddanka ugandha oo xuriyadiisii dib u helay. intaasay waxay ahaayeen qodobadii warkan ugu doorka roonaa daawadayaal. haatase ku soo dhowaada warkii oo fidsan. dagaal sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay, waxaana dagaalkaasi uu dhex maray ciidamada dowladda iyo dagaalamayaal taabacsan al-shabaab. dagaalka ayaa dhacay ka gadaal markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab deegaanka saydheelow oo 30 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in fariisamo ay dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi ay ku lahaayeen ay burburiyeen, inkastoo uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed uu khasaaro aad u yar soo gaaray, laakiin waxaa la warinayaa in ugu yaraantii hal askari dagaalkaasi uu kaga dhintay, halka sidoo kaleetona la warinayo inay ku dhinteen dagaalamayaal ka tirsan kuwa al-shabaab. dhinaca kalena laamaha ammaanka dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku soo bandhigay meydadka xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu dilay dagaalkii qaraaraa ee ka dhacay deegaanka saydheelow duleedka magaalada baydhabo. deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa gacanta ku haya dagaalamayaasha al-shabaab, inkastoo mararka qaar uu dagaal adag ku dhex maro laamaha ammaanka maamulka koonfur galbeed oo garab ka helaya kuwa qaranka. magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa laga soo warinayaa in cabsi weyn ay ka jirto ka gadaal markii maalinkii shalay uu dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa la sheegay inay taabacsanaayeen maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe. bilow aadan kerow oo ah senatarka laga soo doorto magaalada mandheera oo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu sheegay in dagaalka balad axaawo uu markasta saameyn weyn ku leeyahay dadka ku nool magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya. waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in dagaalkii shalay ka dhacay magaalada balad axaawo uu u horseeday magaalada mandheera in uu go'o khadka isgaarsiinta. dagaalkii shalay ka dhacay magaalada beled axaawo ee gobolka gedo ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay mas'uuliyadiisa dusha ka saartay maamulka Jubbaland iyo dowladda Kenya oo xukuumadda dhexe ee Muqdisho sheegtay in iyadu ay mas'uul ka ahayd. wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu sheegay in hadal uu shalay sheegay warbaahinta si khaldan ay u turjuntay, isagoo sheegay in hadalkii uu shalay warbaahinta u jeediyay aanu ula jeedin in qaadka ka imaanaya waddanka Kenya ay fasaxday dowladda Soomaaliya, laakiin waxa uu sheegay wasiirku in maalinkii shalay uu ka hadlayay jaadka hareeriga la yiraahdo ee ka imaanaya waddanka Ethiopia, taasoo uu sheegay in qaar ka mid ah shacabku ay aamineen in dad gaar ah ay u xiran tahay. hadalka wasiirka ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo saacadihii la soo dhaafay si weyn baraha bulshada looga hadalhayay in dowladda Soomaaliya ay fasaxday jaadkii ka imaanaya waddanka Kenya ee mirowga loo yaqiinay, laakiin wasiir Beyle waxa uu diiday in gabi ahaanba hadalkiisii shalay uu la jeeday inuu fasaxay jaadkii mirowga ahaa. ugu dambeyntiina wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in cid walba oo doonaysa in jaadka ay dalka keento ay tahay in marka hore ay ruqsad u hesho oo ay sharciga soo marto. dowladda Soomaaliya ayaa 11 bilood ka hor joojisay qaadkii ka imaanayay waddanka Kenya, iyada oo in muddo aba khilaaf xoog leh uu ka taaganaa gobolka Hiiraan, si gaar ah maamulka Hirshabeelle iyo jabhadu aas-aasay Jeneraal Xuud oo horey ugu tirsanaa militarigii Soomaaliya. ayaa hadda waxaa soo baxaya in xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay dadaal weyn ku bixinayaan sidii markaasi loo dhammayn lahaa tabashada ay qabaan dadka reer Hiiraan ee ka dhalatay doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. wax ka badan 3 bilood waxaa magaalada beledweyne ka taagan ismarwaa dhinaca siyaasadda iyada oo dadka deegaankuna ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ay dadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay si weyn u dulmiinayaan. magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan oo in badan oo ka tirsan ciidamada AMISOM iyo laamaha amniga dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka Hirshabeelle ay ku sugan yihiin ayaa waxaa la sheegay in hadda xaaladeedu ay soo hagaagayso, inkastoo siyaasadda dowladda dhexe iyo tan maamulka Hirshabeelle weli ay si weyn u diidan yihiin dadka shacabka ah ee deegaanka ku dhaqan. markan qodobadii caalamka
maxkamad ku taalla waddanka Uganda si gaar ah magaalada Kampala ayaa amar ku bixisay in xuriyadiisa loo soo celiyo fanaanka siyaasiga isku bedelay ee Bob Wine kaasoo 14 bisha doorasho ka dhacday dalka Uganda uu qaadacay waxaana uu sheegay Mr Bob Wine in doorashadii dalkaasi ka dhacday uu ku shubtay madaxweynaha wax ka badan 34 sano ka talinayay dalka Uganda Yoweri Museveni. siyaasigan daada yar ayaa gabiyahaanba gurigiisa waxa isku geedaamay ciidamada militariga iyo kuwa booliska waddanka Uganda waxaana la sheegay in hadda ciidamadii ammaanka dalkaasi laga dulqaaday guriga siyaasigaasi inkastoo uusan warbaahinta la hadlin haddana doorashadii ka dhacday waddanka Uganda ayaa waxa uu sheegay inay tahay mid xaaraan ah oo uu ku shubtay madaxweyne Yoweri Museveni. dowladaha Mareykanka midowga Yurub iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaana dowladda waddanka Uganda ku cadaadiyay in xuriyadiisa uu dib u helo siyaasiga mucaaradka ugu weyn waddanka Uganda. warkii aad ka daawanayseen warbaahinta Deegaan TV ayaa inta ku dhan warkan warka xigeentan ku kulmi doono nabadgelyo.